waftiga balaadna ay hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdullaahi Xaaji Cali Cadan iyo mudooyinkii u dambeeyay kormeer ku gaala bixinaya bariga gobolka Sanaag isla markaana ay socdaalkiisa ku weynayeen xildhibaan Maxamed Ismaan Bulqaas iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhaqanka Soomaaliland Mubarak Maxamed Saalax waxaana waftigu ugu horreyn socdaalkooda ka bilaabeen deegaanka Carmale halkaasi oo si heersare ah loogu soo dhaweeyay iyadoona waftigu ka itimaan dhinaca iyo degmada Xingalool halkaasi oo ugu horreyn ka qaateen salaam sharaf oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan deegaamadaasi iyadoo wasiirku uu dhagax dhigay 3 mashruuc oo dhawaan xukuumadda Soomaaliland ka hirgelin doonto deegaanka Xingalool oo kala ah Elbiyood saldhig ciidanku yeelanayo iyo sariibada xoolaha waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdullaahi Xaaji Cali Cadan waxaana uu ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa oo uu ku safeeyay u korgelida xaaladda guud iyo xogaan naqashada xaaladda bariga Sanaag isagoo sheegay inay ka hirgelin doonaan mashaariic wax ku ool ah waxaana uu uga mahadnaqay wasiirku shacabka reer bariga Sanaag sidii ay u soo dhaweeyeen biyuhuna markay soo baxaan baynu xafladda dib ugu dhiganaynaa hadda ma xafladaynayno kaliya waa calaamadeyn baynu samaynaynaa marka meeshii laynoo sheegay bismillaahi raxmaan bismillaahi allahu akbar damala xagare oo saldhig ahaan ugu horreeyey oo saldhig weyn oo macno leh laga dhisayo halkan haddii ilaahay ka dhigo deyrkiisana la weynaynayo boliiskaana leh boliiskiina waa ka hor jooga hadda taliyahoodii askartii kalena meeshay joogtaa kuwa kaloo khayr qabana waa lagu kordhinayaa marka dhagaxii baan dhigaynaa maanta waa dhagax dhig bismillah ciid ku shubaa waxaan u soo baxnay inaan siyaasadda bedelo oo ku bedelo wixii markaa dadka loogu talagalay oo mandaqada wax jeeb galaa wax ay cidna wax tarayaan waxa dhaxalgal noqon kara wixii markaa ama ciidanka sidiisa sida xarada aad moodo dagaalkii labaad in lagu dagaalamay oo yani dushu qaawan tahay oo kale in loo sameeyo in ceelo la qodo in dhulka biyaha la biyo laga helo haddii alla yidhi halkan waxaan ku sameynay baaris dhulka hoostiisa ah si loo raadiyo biyo ceelkii lagu qodo oo biyo macaan loogu soo saaro magaaladan damala xagare waxa ku wareegsan damala xagare ceel buux oo qodan 204 mitir armaale wuxuu qoday 234 mitir Xingalool wuxuu qoday 120 mitir dahar wuxuu qodan tahay 210 mitir darar weyne oo inaga xiga galbeed wuxuu qoday 215 mitir ceelka waxa isku mid yahay ceelka darar magaalada sariibada looga dhiso waana markii koowaad oo muddo hadda ilaa 1960 ba magaalada ugu dambeyntii waftigan balaadhan oo hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadan ayaa mudooyinkii u dambeeyay si heersare ah loogu soo dhaweeyay deegaamada bariga Sanaag Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Ergabo